بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى كلمة اليوم waxay ku wajahan tahay mujtamaca iyo bulshada si ay uga faa'iideysan lahaayeen inaan maarta gaarsiino mutamarka dhalinyarada mutamarka isaga ah oo ah markii la fiiriyo mutamarka sideedaad dhalinyaradu ay qabtaan 4 sano la soo dhaafay mid kamid ah 2019 oo ka dhacay halkan iyada ah mutamarka isaga ah oo hadda kan markaa noqonaya kii labaad ee Livingstone ku soo aada ayaan insha Allah taala rabnaa dadka inaan gaarsiino in ay ka soo qayb galaan mutamarka oo dhacaya taariikhdu markay tahay 23ka iyo 24ka iyo 25ka insha Allah taala mutamarka isaga oo bilaabanaya maalinka Jimcada dadweynuhu waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan si aad iyo aad ah mujtamaca iyo bulshadu aad bay ugu baahan yihiin in wacdiga iyo waanada inay ay aad iyo aad uga faa'iideystaan run ahaantii bulshada waxay ku nooshahay meel waddan aan muslim ahayn ku nooshahay bulshaduna ma hesho wacyigelin iyo waano dadku waxa weeye wax ku mashquulsan yihiin shaqooyin marka jaanisku markuu jiro xilliga isaga in laga faa'iideysto baan maartay insha Allah taala ugu baaqaynaa dadweynaha waxaa laga yaabaa dad badan oo maartay hadda laga yaabo inaysan macnaha u suurtagelinaynin inay ka faa'iideystaan wacdiga waanada inay jaaniska isaga u suurtagashay ka faa'iideystaan waxaan leeyahay run ahaantii waa jaanis aad iyo aad u qiimo badan waxaa imanaysa culummo waaweyn oo ay kamid yihiin sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar waxaa imanaya sheekh maxamed riis waxaa imanaya sheekh cabdullaahi ibraahim waxaa imanaya sheekh aboston sheekh yuusuf waxaa iman doona sheekh macalin barre oo kamid ahaa culummadii markaas iyadana maartay leyn waxaa kamid ah sheekh garyare ayaa isagana iman doona culummadaas iyaga oo dhan ilaahay idinkiisa subxaanahu wa tacaala suurto geliya inay ka soo qayb galaan baan rajaynaynaa wacdiga iyo waanadana maartay insha allahu tacaala laga faa'iideysto waxaan maartay kusoo koobaya hadalkaygu waxaa qofka laga yaaba inuu dhamaysto kelimadan iyada ah waxaan u sheegayaa insha allahu tacaala inuusan fududaysaninoo aysan noqonin hadal maartay magaranaysa intaad dhegaysato ay waxay ajiibtaan rajaynaynaa ood ka soo qayb gasho shirka isaga ah waxaa badan آيات قرآن أو قف مر بدشي حابدا الحديثة أو قف أنتم مغلب بدشي هيستوريك شيء تاريخ يصير نيك اللي يرنجري فضيل بن عياض نيك اللي يرنجري الزاهد كها يا عبد الله بن المبارك فجأة صورا وحب بدشي هلا آيات القرآن آيات بدشي إلهنا سبحانه وتعالى وقعد في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولذلك وحن لي هاي هل آيات هل حديث مقشبة لقى يابا إنك بدرشو إيمانتين كاغو أجر نواتيريسا إيمان كاغو وزيادة هي عمل كاغو إنه واحد نسكب الدلم بالغا يابا مركب قفك وراك مسلم كا وحن لي هاي كسو قيبك وادوكتين إن دليرة إنه مارتي وضح اللابين مشان يرفع اللابين قبل يويل البا دادي مارتي هذا كسو بحري هاي سكول كسورة مايسي إن قاعد لوهينين وده كان مرايكن كو أي مارتي كل وجيل كان سجى أي مارتي أي جلان معناه سوق جلال وإلهي سبحانه وتعالى إنه سوء عليه موينة أي خطر كسويهم كوا الدنب إن بدبادين أو بهذا مهم أنا أسليه هاي إلهي سبحانه وتعالى وبدبادين كرا آدي آد بالمارتي وحاول بهار بدن عروض درما ضدك معناه ماشي الماء كله رهاي يوم مارتي خطرت كسوء آدم من آد مارتي يقول بهارا هذا الكيس قف طبعا عروض كله ماشي هذا والتربية سكول إسلامي أنا هيني وببلغ سكول ودرا هي اللي مركي مارتي مقرنة سو مارتي بدبادان ومارتي سو كوران مارتي أسلحة وافعنا ذلك وكان فعلها هين أيوة خدك بحياة مركز تاس يضع وحاكنتي برشدي بيئدي ومارتي أنا كساعديني أيضا إنهم مساجد كي دعوة دين تانو حرينين أيضا هو يدي أبيها يدين تكتفوجين نغنكي ولا جاي أبو قبل دي هو يكون ده إني سنهين ويلك أبو كده إني سجرين قولوا الصلاة وحق عيني سجرين مركز إلهي سبحانه وتعالى ويفضل ده إن ومارتي دتك ومارتي ما رني ساي تسيو طريق حقه لكنه حويان فعل بنوجه بهيه
إن شاء الله تعالى هدي أتمادان وحنرجينا ورا الله مسلمين تعالى إن أتكفى إذا سدونتان إن شاء الله تعالى إن آدي آدنا وفى إذا سدونتان ولماذا سيادة إيمان هي وحن ليه هي وما كانش جوه الرئي وليوستون صومر أنت سو علماء اعتماده أما مين بأمارة كذا عضو أما مؤتمرات كذا يرد اللي قبل شري ودن أي أنت سو علماء أسرتك شيء إن إمارة ليس سوق الجريو وكانش كأسجع وكانش غالي على إن شاء الله جزاكم الله خيرا هو يوينكا كونوا المجال ليوستون كونوا المين بوسطن إيريا دنودن وحنو باقي إن إمارة كي مدان لأن يرد سودو كلنتو سبورتيكا يرهق كلنتو إمارة آدي آد إمارة مساجد ده إمارة دعوة الدين تقول حجرة إن يكسر قبلان odayaashu inay maartay fadhi ku dirarka joojiyaan oo sheekooyinka iyo maartay iska dayaan xanta ay ka soo qayb galaan marjina insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi insha Allah ta'ala waxaan qabnaa insha Allah mu'tamarkaas oo ay ka soo qayb galayaan culimo fara badan dhamaan culimada anagii Sheekh Maxamed Idriis Sheekh Abdurrahman Sheekh Umar Sheekh Abdullah Ibrahim حفظهم الله إلهي حفظه سبحانه وتعالى marka insha Allah ta'ala waxaan dhihi lahaa jaaliyada ku nool New England dhamaan reer Boston iyo ha noqoto kuwa ku nool mantaqana state of Maine iyo mantaqana khaasatan magaalada Lewiston in laga soo wada qalo dhamaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkan baan imaanay waana meel qurba ah sidaan ognahay waa meel aad iyo aad iskaga dhib badan beecada iyo environment-kaba oo mataqaana ilmaha hadduu banaanka u baxo sidaan soo gaarnay dadka waalidiinta odayaasha ay garaaci jireen hadday khalad arkaan meeshan ilmuhu hadduu khalad uu qabo cid qabanaysa ma laha waayo banaanka hadduu istaago waxaa laga yaabaa kii 80 jirka ahaa inuu ku yidhaahdo mataqaanaa keep you are doing very great oo mataqaanaa biraha asagoo dhigaha ku wato weliba iyo carabkaba marka insha Allah ta'ala waxa laga yaabaa rubama inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof eray inuu ka faa'iido eraygaas laga yaabo qofka inuu sii gaarsiiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu ku sii anfaco marka waxaan ilaa walaalaha ku nool dhamaan insha Allah ta'ala khaasatan statekan Maine inay ka soo qayb galaan meel ay joogaanba ayna la socdaan khayrka iyo wanaaga anagoo og adduunyada inay iska tahay laba bari in badan oo na dhashana habeenkan caaw ay qabri ku jiraan in badan oo mataqaana qaraabo ahna abti iyo aye iyo adeer iyo awow ramadaanka hore nala noolaa oo mataqaana nala soomay aana gaarin ramadaankii hadda aan soo dhaafnay in badan oo ramadaankii hadda aan soonnay oo hadda aan soo dhaafnana ay gaari doonin ramadaanka dambe oo soo socda marka insha Allah waxaan dhihi lahaa daartan baba daar iska yar ah intaan ku nool lahana waa in iska yar cid la arkana way ka socotaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa nagala dadaarmay ayada inay tahay adduunya mataqaana khudra in wayna Allah ta'ala sayadru kayfa ta'maluun sida mataqaana adduunya iska cagaar tahay ilaahay inuu nagu fiirsanayo macnaha waxaan ku suubinayno sida daraadeed waxaan dhihi lahaa insha Allah naftayda iyo walaalaha dhamaan inay ka soo qayb galaan insha Allah ta'ala khayr bay kala kulmi doonaan baan rajaynayaa intii meelaha la iska fadhi lahaa fadhi ku dirir iyo qiila waqaala iyo kadarta su'aal lagu jir lahaa wasalaamu Allahi calaykum waraxmatullahi bismillahir rahmaanir rahiim waxaan maleynayaa intii hadal murti waxa jeeday muxuu shuyuuqdii ugu horeysay imaamka masjidka Sheekh Saalax iyo muxuu Sheekh Maxamed Saalax marka aniga waxaan wax yar ka taaban lahay dhinaca muxuu ahaa maamulka masjid nuur sidaad la socotaan muxuu ahaa mu'tamarkan maanta muxuu ahaa hadduu ilaahay yiraahdo 23 furmaan wuxuu soo maray maraaxil kala duwan sidoo ku bilowday waa la wada ogyahay oo muxuu ahaa waxa buddiga u ahaa muxuu ahaa masjidkan nuur oo maanta la martigelinayo muxuu ahaa kalfadhigii muxuu ahaa lixaad inuu yahay u maleynaa sideedaad marka muxuu ahaa ilaahay khayr ha ka siiyo muxuu ahaa Sheekh Saalax ayaa sabab u ahaa aasaaskii maaragtay muxuu ahaa dhalinyaradan markii la isku dabariday guud ahaantooda waxa lagu bilaabay North America waxaan leeyahay muxuu ahaa New England oo 3 degme muxuu ahaa degmadan aan ku noolnahay ee Lewiston oo buddiga u ahayd runtii degmada Portland iyo Boston oo iyada naftirkeeda degmo ahaan le aan dhihi karno markaas
muxuu ahaa wuxuu ku bilaabay saddexdaas degmo ilaahay mahadiisu ee maanta wuxuu ku fiday North America oo dhan dhalinyaradeeda waa tan loo diyaar garoobaya marka ilaa heer muxuu ahaa shirweyne dhidabada loogu taagayo muxuu ahaa ururkii dhalinyarada muxuu ahaa North America oo dhan mar haddii shalay uu ku bilaawday saddex degmo ka dambe muxuu ahaa uu ku fiday marba Nashville ha ka soo qayb gashay mar muxuu ahaa Ohio ha timaado mar muxuu ahaa ha ka soo qayb gashay muxuu ahaa Minnesota maanta wuxuu taagan yahay muxuu ahaa North America oo dhan inuu ku fido runtii ammaanteeda waxaa iska lahaa muxuu ahaa Sheekh Xasan ka shaqeeyay Sheekh Saalax oo buddiga u ahaa arrintaas oo dhan markii intaas aan ka gudbo muxuu ahaa ka masjid nuur ahaan qorshaha waxaa noogu jirta muxuu ahaa sanad walba qorshaan sameynaa qorshaha qorshahooleedkeena sanadkan ayay ka mid ahayd December 23 24 iyo 25 mu'tamarkaas in lagu qabto oo aan martigelino diyaar garow intii la doonaan sameynay ka annagoo muxuu ahaa maamulkii dhalinyaradeenna iyo maamooyinkeenna oo isku duuban iyo culimadeena muxuu ahaa guud ahaan muxuu ahaa bulshada ku dhaqan muxuu ahaa Lewiston waxaana diyaar u nahay muxuu ahaa martigelintoodii hadday noqon lahayd jiifkoodii cuntadoodii muxuu ahaa goobtii maaragta shirku ka dhici lahay iyo muxuu ahaa adeegyadooda guud ahaan wixii oo dhanna waa naga dhan yihiin muxuu ahaa runtii waxaan muxuu ahaa ammaan aan la soo koobi karin halkaan ugu jeedin lahay hooyooyinka oo runtii mar walbaba ayaga saldhig u ah howl walba oo muxuu ahaa meesha ka soconaysa najaxinteeda ayaga la-aantoodna muxuu ahaa aynu suurtagal noqonayn in waxyaabaha qaarkood maaragtay suurtagal ay noqdaan runtii arrintan ku bilaabatay muxuu ahaa saddexdaas degmo dhalinyaradooda maantana muxuu ahaa intaas ku fid doorka ay leedahay wax la qiyaasi kara maa runtii dhalinyaradu waa muxuu ahaa waxaan dhihi karnaa waa isha ay ka taranto ama ka tiranto bulsho walba meel walba ay joogaan waa mustaqbalka muxuu ahaa waddan walba waa mas-uuliyiintii muxuu ahaa aqoon-yahankii oo berrito marka intaas waxaa u weheliyay marka mar haddii maaragta loo soo qaxe muxuu ahaa qurbo waxaa muxuu ahaa meesha keli ay ku badbaadeen carruurta Soomaaliyeed waxaa waay masaajidda waay marka waa laga maarmaan in mar walba loo qabto tartamo kala duwan ama hadday noqon lahayn dhinac maaragta muxuu ahaa maadig ama hadday noqon lahayd dhinac kale muxuu ahaa oo diinta waa laga maarmaan marka arrimahaas ay salku ku hayaan muxuu ahaa arrimahan hadda socdana waxaana diyaar u nahay soo dhaweyntoodii waxbayaan ku dheeraan hadalka wax walba anaga xaggeena waa ka dhamaadeen waxaana rajaynaynaa muxuu ahaa in gacmo furan aan ku soo dhaweyn doono muxuu ahaa culimada iyo dhalinyarada imaan doonto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha waan salaama insha Allah ta'ala and all my dear respected brothers and sisters and around Lewiston and urban area and also around the country United States where we live in, and we would like to take this opportunity as our Islamic youth to welcome you for our 8th annual convention, which is going to take place in December 23rd, 25th and 26th inshallah ta'ala. And as Sheikh Salah, Sheikh Abdullahi and Muhammad Salah said before, there's going to be a lot of inshallah ta'ala and shuyukhs or sheikhs that are coming from different states, and just because they want to give us, they just want to share with us their time, and this is the kind of, season or the kind of time we need to come together as a Muslim brothers, as Muslim sisters, as a Muslim, community or Somali community, to take, and to stand together and have a one-time, convention, inshallah ta'ala, and share with ideas. We're gonna have a lot of brothers coming from around the countries, especially from and all the way from Seattle, Washington, from Utah, and Tennessee, Minnesota, Boston, and everywhere, inshallah ta'ala. So if you live in Lewiston urban area, inshallah ta'ala, we will encourage you to be part of the program, inshallah ta'ala. It's not politicals, it's not gonna be somebody's program, inshallah ta'ala. It's gonna be open for everybody. We would like to take this opportunity to welcome you on behalf of Islamic Youth. Inshallah ta'ala, we will see you there on December 23rd, 25th, and 26th. See you there.